dal walba mustaqbalkiisa waxaa dhisa dhalinyaradiisa. waxaan u kalifaa xitaa oo kaga soo qayb galnay allah nadaafada iska wax u qabsay in horumarka anagana horumarka dalka ka socdo in anagana qaybteen ka geysano oo si xilqaan iska wax u qabsay allah nadaafadeed waa dad iga horeeyeen dad bilaabeen oo ku jireen oo anaga wax isugu jirnaa arday jaamacada dhigtaan wax isugu jirnaa hal jiray dad waaweyn oo gartay in yani waajib wadankooda ku leeyahay gartay hadaadan ka qaadan karin balaastiga iyo qashinka adiga ku tuurinaa leenahay inta waxa uu soo dhaqaajinay oo subaxna xitaa in iska wax u qabso si xilqaan inta awoodna dalkeena ugu qaban maadaama dalkooda uu sarakac u sameeyay horumar oo wado oo meesha la joogno maanta ka fiicanahay anagana inaan kaliya dawladda bis lagu haleynin oo yani mas'uuliyad dawladda bis inaan la saarin oo ku kaashan wadaniyad iyo mas'uuliyad si ay u noqdaan qayb ka mid ah horumarka dalkooda. Najiib waa mid ka mid ah dhalinyaradaas wuxuu ku biiray koox dhalinyaro ah oo bilaabay dadaalkan 4 sano ka hor waxaana uu noqday astaan u taagan isbedel daacadnimo iyo wadan jecel. عبد النجيب حسين محمد واي أرضي كميد أرضي جامعة أمة الصومالية دكتاهي وحب يعني كسر قيب قلا سواء حلقة جمعة الله نظافته يوعي قلنت بالشلة سمعنا يا سواء حلقة جمعة كسر قيب قلنا أنا مرة أيضا نحمر حساب صوبيري لكن ضد إيجاه رأي صوب الله ويجري من مدة سود هذا تضوات يوحل مرة يا الله بقول توني سنة الله بقول توني لحالة تضوات كانوا ما تبيعين يعني لكن وحال صوب الله مرة على صوب الله وأنا دحوا صوبيري أيضا يعني محلي جرب أيضا سمعت أوقاتي أنا قيب كنا هرمرك دلك دي أرضي أهلين يا دي أهلين برشة أنت ذكلا شعب أنت ذكلا تود أنا كنا دور كنا أقادنا هرمرني والله أنا فضلت كلا صوب الله دحوا صوبيرته مجرى هالضبع صوب صوبير ما نلبو ضبع صوب سوي دي برجنا كان نيو سيدا كوشة بلاستيك بس ما قربنا وحاسمنا وعيقلنا سمعنا وعيقلنا سمعنا أي واحد بدن ترتي ومحلية جدتك ويقعدين وحنا حلقان كان يفايد وليها يبرشد وحا وترى يقعدين جمعة والبو حنو صبير دد عسوان وصبيران وديارو إن دلكو سيس حلقان إسكا وحا قبسا وقيب قلان سي أنا قبو صبير أنا وكلمة قد كالا الله وحا أقعدي يعني تيم صاحبة ياكو أقعدي صاحبكي وستوكي صوري يا أركي وصورة صورة وورث يعني information full information وشيء سيديا بان كوسا قيب قال marka kusa qayb galay maadane yani waxa ogaaday in waajib wadaniyeed oo nasaaran iyo mid diineed oo dalkeena naga saaran in yani loo gudanayo oo tahay waajib muhiim ah tahay in laga soo qayb galo waa in qof kastaana oo deegaanka mas'uul iska saaro waxaana haysanaa xeebta ugu dheer xeebaha caalamka haysanaa oo khayraad aad ugu buuxo hadii lacala balaastigan oo yani u tago bambacahan ay u tagaan yani waxay la ogeysan karaan xawaankaas badda ku jiro ugu yaraan inuu waxay sameyn karaan xataa markaa yani inuu dawargo ay sameyn ogeysan karaan inta ku jirto Allah nadaafadeed oo 4 sano ma jira waxa qabad waa macna la kulanta inta wadin marka danka wacyi gelinta markii la dhaho kale tood dadka wax kala kulmay falcelin kala duwan kala kulmaysa kuwa qaar oo ku dhiirigelinayaan waxa ku leedahay ma sha Allah shaqo fiican haysa shaqo fiican dalka weysiin ilaahay la garab galay ku dhaayeen dadka qaarna waxay leeyihiin negative ay leeyihiin waxa ku leeyihiin misal lacag ku qaadatiin waxaan hay'adaha soo qaadateen bal dawladda ay shaqaaleysiisay lacagta wax naga siiya waxaas ku leeyihiin laakiin dadka positive ka badan oo wanaag ku arkayo waxaan isxilqaanka inay yihiin inuu positive ku arkayo ku dhiirigelinayo ku dhahayo yani hore u socdo ma sha Allah shaqo fiican dalka weysiin anagana waa ka soo qayb gali doona ku dhahayo laakiin negative ma jira mar walba oo bulshada markii wacyi gelin sameynaysa negative positive kala kulmaysa ku dhahayo misal lacag qaadata waxaan yani mawaalanta markaa qashin gurbanaysid waxaas lagu leeyahay laakiin muhiimadda waxay tahay yani dal walba dhalaalayo qurux badan oo maanta tawlo maxalli jir lagu faanayo dalaha Mareykanka iyo dad shacab dhalinyaro oo ordayaan يعني دل أو إلهي أو أبو رمان إنه سقرب النام مسك دلالة شعب كيسي دليردي سيدت كيسي أرضي سأوقعين
oo si isxilqaan iyo maxaa lihi jiray u sameynaayo waxyaabaha kaleeto la yaabka waxay tahay haddii waddamahaas aad tagto maanta ole yani yaraan xanja ah cunto oo kale laami ku tuuraysid ku gaartid cunug yariiska waa kaa dhicinaya kuleeya dalka admaas kale kuleeya seeba ku tuuraysaa halka annaga macallimiinteena iyo dadkeena wax bartay iyo bahalka mas-uuliyiinteena iyo xildhibaanadeena caaga balastiga ay ku isticmaalaan ee waddada ku tuurayaan meeshaan soo marayna meel dhow maahan laakiin waxaa mar kasii dambeysa horumarka yani wacyigelin dadka bulshada way sii gaaraysaa waxaan leeyahay bulshada wacyigelin badan la sii gaarsiiyo dhanka fariinta aan ku gudbinayo oo kuu sheegi doona insha allah maasantahay maalintii koowaad oo allah nadaafadda la bilaabayay isbeddelka guud ee xeebta iyo maanta hore farqi noocee u dhexeeya iyo farq fiican u dhexeeyo sida kuu sheego taro anaga waxaan ahay dad yar oo kooban aan ahay oo Soomaaliya oo dhan ma nihin inta oo qaadayso qashinka ka qaadayso si xilqaan u qaadayso inta ku daadinaysa badan laakiin anaga waxaa sameynaa waxa la reduction yareyn yani inta awoodna ay yareen qashinka jimcada anaga midalan salaan oo kale 6 maalin oo kale qaarkeen way shaqaystaan qaarkeen waxbarasho aadaan waxaa imaanaa subax jimcada 12 ilaa 1 saac bas shaqeynaa yani halkaas saacadood anaga wax ururinayna ayagana waxay qashinku dadkan waxay ku tuurayaan balaastig dadkan wali fahamsanayn waxay ku tuurayaan maxaa lii jiray maalmaha kale dhan ay qashinku tuurayaan marka qashinku maalmahaas dhan la tuuraa in saacad lagu qaadi karin inaa aad buu garanaysaa laakiin waxaa sameynayna haddana waxa la inay isku dayno inay yareeno oo yani balaastig intii aka yareen laakiin shay siduu shalay ahay waa dhaama xeebta marka loo fiiriyo si shalay ay ahayd maanta way dhaantaa oo yani sawirada oo laga qaaday before iyo after sawirada laga qaaday direct oo kale waa sidoo hore way dhaantaa aad iyo aad u mahadsantahay warbixinta nasiisay fariinta ugu dambeysa oo dadka Soomaalida u gudbinaysa maxay tahay aad u mahadsantahay fariinta ugu dambeysa oo bulshada u gudbinaya waxay tahay inaysan isticmaalin balastiga iyo bacaha balastiga ama bacaha waxay sii jiri karaan muddo 4 sano ka badan ay sii jiri karaan oo waxay la sii geysan karaan marka waxaa leeyahay bulshada inaysan isticmaalin bacaha ku wacyigelin lahaa iyo balastiga qaybihiisa kala duwan yani haddii isticmaalaan inaysan qalad labaad gelin aysan ku tuurin yani xeebaha iyo meelaha oo bulshada yani aysan ku tuurin xayawaankii waxay heelanaysaa bahalka geedihi waxay heelanaysaa xayawaanka badda ku jiray waxay heelanaysaa inaysan ku qubin waddada yani meelihii loogu talagalay ay ku ridaan hadda xeebtoo kale waxaa loo sameeyey meelo oo lagu rido balastiga lagu rido loogu talagala loo sameeyey marka xeebta imaato usoo dalxiis tagtid bacaha iyo waxa balastiga ay isticmaashid qashinka ay isticmaashid xeebta ha ku qubin oo waxay la ogeysanaa xayawaanka badda ku jiro at least ugu yaraan markay ugu yartaa waxaa samaysaa waxaa ku ridaa qashinka meelihii loogu talagala ku rid oo yani ugu yaraan waxaa fariinta u dambeysa gaarsiinayo ama fariinta wacyigelinta u dambeysa gaarsiinayo waxaa leeyahay haddaadan ka qaadin karin balastiga iyo qashinka adiga ha ku tuurin aa leenahay aad waa mahadsantahay processka dadka isku diin qof hadduu rabo inuu volunteer noqdo oo macnaha si caadi intuu imaado oo la nadaafadeed in kala qayb qaato sidoo macnaha in kala qayb qaadan karaan sida hadda magaca ka garanaysa waa volunteer waa isxilqaan waaye hobby waa uu furan yahay wax oo yani lagu xijeenayo wax shuruudo lagu xijeenayo ma jiraan waa volunteer kaale soo xilqaan oo xilli hore imaa waqtiga nala ilaalin noo imaa 12 ilaa saac shaqaas la qabtaa waa volunteer waa lama kala xigo waaye adiga daaimaato nagu soo biirtid xataa waxaan ku leenahay welcome soo dhawow meesha lama kala xigo adiga jimcaha dambe qofkii dadka soo dhaweynaya noqonayo marka volunteering waaye volunteer magacaas ka garanaysid waxaa waaye open hands lagu soo dhaweynaa gacmo furan oo galgacal lagu soo dhaweynaa mahadsantahay